waayeelkii waxgaradka magaalada Fadhigaab ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay dagaaladii dhawaan kala dambeeyay ee ka dhacay magaalada Fadhigaab. waayeelkan ayaa ku dheeraaday marxaladaha kala duwan ee dagaalkaasi u maray, iyagoo sidoo kalena ku eedeeyay inay weerar ku soo qaaday jabhadii dhawaan laga dhawaaqay gobolka Sanaag. waxaana waayeelkan iyo waxgaradkan iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii kamid ahaa. degayahay ayaa waxa dhacday dhacdada ugu dambeysay, yani markaa imika ay dhacday. dhacdadaasi markii ay dhacday inamadii lagu laayay wadada ee u shaqayn jiray wadada ee daamurka shidi jiray, markii yani qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen, way sunnima annagu way isxakamaynay. reerkan haddaanu nahay Jibriil Xasan waxaanu isku xakamaynay yaynaan shar kale ku darin. annagoo sidii ku sugayna ayaa waxa dhacday miishankii hore oo kale in haddana la soo abaabulay oo odhanaya war hawsha aan ballaarin oo miishan aan ka sokaysiino. taasi way dhacday. waxaa maanta taaganna way dhalisay. waxaa maanta taagan iyo khasaaraha iyo burburka iyo dhimashada iyo nafwaaga ayay maanta dhalisay. waxaanu leenahay dawladda, waxaanu leenahay jiiraanka, dadka nabada jecel aanu sheegi lahaa inay hawshaa kale oo ka dambaysay reerku hawshaa uu miishanka ku dhigay ku baabiinaya falkaa inay iyana la socotay jabhad 3 sho markay maraysay. jabhadda lafteedina meesha ay ka dagaal gashay. xabadahaas ka dhaceen magaaladii ma joogin magaalada aanu meel baanu joognay kamida Fadhigaab oo dibadda ah oo aanu markaa ciidamada ku reeraynay. waxaana noogu wacnay nabad jacayl dawladda qaarkeed, wasiirada qaarkood, khusuusan Siciid Sulub na amray arrintaa ii daaya imaqla waa maqal. waxaan leeyahay wixii hore waa la dhameeyey, nabadaanu reerkaa ku aaminaynaana ma jirto xaqiiqadii haddii ummadoo dhammi dhawaaqdo. dagaalka ugu dambeeyey maalintii dhowaad dhacay in uu ahaa dagaal oo jabhadaysan oo loo dhan yahay oo aanu war ku helnay saacaddaa uu dhacay. daqiiqado ka hor waxaa la ii sheegay in shir reerka la yidhaahdo Axmed Faarax uu u dhan yahay lagu qabtay meelaha Laasoomaraya halkaa oo ah in lagu qaado weerar Fadhigaab. annagu waa naqaan colaad oo waa naqaan nabad oo waa naqaan ilaahay oo rag waa naqaan oo rabbi waa naqaan oo run waa naqaan. haddii sidaa haddeer hawluhu ku eg yihiin wax laga bedeli waayo waxaanu ka joognaa jegadii biciidka. wixii biyaha haddaan helana alxamdulillaah, haddaan waayana rabbilcaalamiin. odayadaa dhameeyey khaladaadka iska soo daba noqday ee reerka ka yimi wax sheegiisii iyo hadalkiisii odayadaa dhameeyey. waxayuu isgaraynayaana waa cadaalad darro ka imanaysa xagga dawladda, waayo haddii cadaalad jirto waxa kani iskama daba yimaadeen oo ninka khaldan la qabanayo. reer Soomaaliland oo dhan ballantii ay noo kala dhigtay ee ahayd haddii gacan ku dhig la wax geysto inaanu reer noqon, inaan saf loogu jawaabin, in la sugo, in la isxakameeyo. taa anagoo sugayna muddo badanna lagu caanaanan jiray oo la oran jiray waa inaad sugtaan marka wax la idinku sameeyo, ayaa haddana waxna loogu jawaabay weerar sida Faysal Abakor iyo waayeelka kale garada ka hadlay ay ku hadleen. anagu waxaan cadayn lahayn sheegi mayno. jabhadaas waxay qabsatay 3 sho gudahood in lagaga qaado Soomaaliland kaga qaado Fadhigaab iyo Garadag, Darar Weyne iyo Ceelaf Weyn. 3 cisho markay dhamaatayna weerarkeedii waxay ku soo kala bixisay Fadhigaab bay ku soo kala bixisay. ciidamadii dawladdu way caabin kari waayeen, way ka baxeen. waxa cadayna reerka nabadoonkoodii laga sugayay gacan ku dhiglaha uu darawalka ka ahaa gaadhiga qorigu saaran yahay. ta kale waxaan leeyahay reer Garadag oo ugu jawaabaya waxa yahan dagaalka laga wado Bohol iyo Fadhigaab. idinku waxaan leeyahay kurta dhagaxa iyo cirshaayr maanti markaa marba dhinac u yaacayseen macarafay ahayd, dibna u sugi mayno, aqbalina mayno in la yiraahdo gacan ku dhiglayaashii dilkaa furiyey ee maalintii hore furiyey dagaalkii dambe Fadhigaab baa meeray. haddii 9 dagaal dhacdo, 9 dagaal hadday dhacdo waa haddii nabad laga doonayo. 9 dagaal hadday dhacdo wallaahi baanaan u cafiyey oo aanay u suura gelin oo aanan nabad uga qaadanin ilaa gacan ku dhiglayaashii bar kala taago. wixii lagu ballamay ee culimada Soomaaliland oo Sheekh Duruur ugu weyn yahay ay noo kala dhigeen ilaa la fuliyo 9 dagaal hadday dhacdo wallaahi baanaan u yeelin. Maxamed Araan, Badcas 24 TV, Ceelaf Weyn.